Cabdullaahi Axmed Cadow oo ka mid ah musharaxiinta doonaya inay ka qayb qaataan tartanka madaxtinimada Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi kulan ballaaran kula qaatay qaar ka mid ah waxgaradka iyo ganacsatada beelaha Soomaaliyeed kuwaas oo kala hadlay sidii ay ugu taageeri lahaayeen tartankiisa madaxtinimo iyadoona ganacsatadaasi uu ka mid ahaa ganacsada Siciid Xasan oo loo yaqaan ereg oo ka mid ah ganacsatada qurba joogta kaasoo sheegay in loo baahan yahay in wadada nabadda Soomaaliya qaab kasta lagu keeno musharax Cadow ayaa ka dhawaajiyay in xilliga kala guurka la doonayo in loo maamulo si xaq ah oo cadaalad ah oo wakiilka ka socda musharaxiinta doonaya madaxtinimada ay goobjoog ka ahaadaan qaabka soo xulida baarlamaanka cusub si looga fogaado in si khaldan loo soo xulo xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaan aad ugu boorinayaa maamulka xamar ka jira inay si nadiif ah oo aan la laab lahayn ilaan maanta iyaga arintii gacanta ku haya marka laga yimaado goobjoogayaasha caalamka inay si sharaf leh oo Soomaalinimo ah oo islaam ah inay arintaas ku aabulaan oo arinta ay ku habeeyaan si xaq ah doorashadaas inay ku dhacdo hadday helaan inay ku helaan si xaq ah hadday waayaan si nadiif ah inay isaga wareejiyaan xukunka Soomaaliya uma baahna buuq dambe dhiig dambe dhibaato dambe uma baahna Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa ugu mahadceliyay taageerada ay beesha caalamka la garab taagan tahay sida uu sheegay shacabka Soomaaliyeed isagoona intaasi ku daray in shacabka Soomaaliyeed ay ku dadaalaan qaabkii looga bixi lahaa dhibaatada iminka dalka ka jirta waxaan u soo jeedinayaa mahad ballaaran beesha caalamka sida ay isugu mashquulisay Soomaaliya inay dib u degto waa la socotaan shirkii London ayay ka bilaabatay in Soomaaliya si gaar ah loo siiyo mudnaan oo Soomaaliya dib loo dhiso shirkaasi shir wuxuu ahaa u horseeday ummadda Soomaaliyeed rajo weyn u horseeday shirkaas waxa ku xigay shirkii Istanbul lagu qabtay kaasoo si buuxiyay rajada Soomaaliya in Soomaaliya ay u dhisanto dawlad loo wada dhan yahay oo ummaddu u dhan tahay lagu kalsoon yahay marka caalamka waxaan u soo jeedinaynaa mahadnaq ballaaran ee u soo jeedinaynaa Soomaaliya caalamka ka mid tahay musharaxa uu hami wanaagsan ka muujiyay inuu ku guuleysan karo jagada madaxtinimada dalka ayaa maran weydiiyay su'aal ahayd ujeedada ka dambaysa in tira ka dhowr jeer uu ku soo laabto tartanka madaxtinimada Soomaaliya oo marar badan loogu guuleystay waxa ay muuqan ka harilahay dalkii iyo ummadii tabaareysan taasina nin kasto damiir la kama hari karo ummadaadoo tabaareysan oo rafaadsan oo dhibaato intii ugu weyn ay ku dhacayso haddaad damiir leedahay kama hari kartid waxa soo hartay midaan caalamka hadaayan adar sheegay caalamka waa uu ku taageerin karaa haddaad midaysan tahay Cabdullaahi Axmed Cadow ayaa soo hadal qaaday qorshihiisa ku aadan maamulka la magac baxay Somaliland haddii uu ku guuleysto jagada madaxtinimada Soomaaliya waxaan markaa u soo noqonayaa arintii ahayd Somaliland waxaad la socotaan arintani waxay jiitantaba shirkii London inuu keenay in la wada hadlo oo loo wada hadlo Somaliland iyo Soomaaliya in loo wada hadlo annagu arintaas waa ayideynaa si buuxda ayaan u ayideynaa Cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta rugcadaaga Soomaaliyeed ayaa dalalka Kenya iyo waliba Djibouti kaga qayb galay doorashooyinka dawladihii soo maray dalka Soomaaliya inkastoo laga guuleystay waxaana uu wali hami wanaagsan ka leeyahay in mar kale uu ku guuleysan karo waqtigan ay tahay waqtigiisa sida uu sheegay Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV Nairobi